وتعالى شيخنا الرجيني إنه تعليق صار وأنا إسكلا أبياتن معايا ومحاضرة أبو دير وحندوني يا مركينا الله قري كستو قريها كميدا مسلمين مدحوينه ليه مدحوينه أنت وأذيك وآبا هو يدو مدحوينه من نقنكرت إلهينا ومدور بأ رب العزة ومدور سبحانه وتعالى أذيك أياء عبير ساموكتا بسموكت ما كور قبتها بس كور قبت هذا الوقت هو الإلهي الله يصبح هو يدو ووزيرك عافماتك هي بيئة هي الرماها بده وزيرة الداخلية ووزيرة الصحة والبيئة وعلى عريا أيضا قرن عنتذا وين السريد كإلى لسان وين العصبة كإلى لسان وين السكرت كإلى لسان قريقا عنت قيمة بدن أضيبوا وحال يلي نول بقيتوا عنو عظمية أضيبوا عنت ولذلك إن بدن هواك وحنقولها رجينا نفخيستا ساساس ما وعمبولا سيا أو كلون سيا أو قدار سيا وينول بقيتوا عنو عظمية ساساس ما هذيك الهدوء تي أوهيني معنيسا محاربنا مركينا نحن هو يدو قريقا وحا لقا عنايو عافيمات كيسا قريقا هوديسا أيضا لقا ربا وانا وزيرك أرمها قده عرورتا انتو ذاك لسيفي عين دقيست تربية عملية ربا عاوة إنا إذين فائده أبو والبو عاوة إما قليا أو ميشا فرديا ما شاء الله قريقا سمركوتا وإنو الدولة دادسا هذيك مدحوينة متاهي ياد حكمتها هذا الشعب كاغا كلام يلينين أودن عرورتا مid walba xaqiiba u dhiibin oodan mid walba wasiir ka dhigin hadhowta soo mooshin laga keenay maayo hadhowta soo islaantii iyo caruurtii ku midoobi maayaan soo adiga marka dambe banaanka lagu dhigi maayo si aad madaxweynenimadaada u ilaashato caruurta waa inaad si ka dhigto madax waa isku mid kulli reer dhan wasa reer kasta waa sidaas weey sheekh wuxuu yiri fikirka sheegaysa Yurub ka jira inta kama jiro waxba kama warqabo balada mikrofoonka iyo odayaasha u dhiiba inta oday uu banaanka taagan مثلا islaanti iyo caruurtii xulufa ay noqdeen waliba marka islaantu 45 gaadho way oo ay 50 gaadho way oo goosha la qaadato way oo caruurteeda la guursado way odaygana markaas uu dhaama taqana talaay haddaan gabarta dubito jiro soo dhafanaya saas ma waxaasna wax jira way waxba keena sirtaas waa sir aan bixin doono insha Allah ta'ala waxaan doonayaa marka inaan dhaho meeqa wasiir ba guriga looga baahan yahay wasiirka arrimaha diinta guriga waa looga baahan yahay oo magacaabo midka ugu fiican wasiirka arrimaha diinta iyo dacwada wallahi haddaad arrinka caawa ku guulaysataan waxaad arki doontaan ninkaas asaga ah ee arinta u dhiibteen sidoo shaqada u qabtad arki doontaan labo wasiirul ikhtisaad ba loo baahan yahay caruurta dhaxdooda waxaan ii soo gad kaba ii soo gad fanaanada ii soo gad dharka ii soo gad tabartaadana ma aha ciladu waxay ka timid odayga iyo islaanta iyo caruurta waa islama socdaan caruurta waxay u maleynayaan inaan waxba la waayin oo lacag la waayin laakiin marka caruurta soo fadhiiso odada income careerku waa inta odaygu intanuu keena hooyadu intanay keenta ama waxba ma keento guriga ijaarkiisu waa inta telefoonadu waa inta kan waa inta gaarigu waa inta hooyaday oo mataqaana joogta Soomaaliya waa hooyaday $100 $200 baan u dhigaa korontaduna waa inta hebelow lacagtan qabo reerkaasi waxa laga rabaa in aad lacagta biilkina ka soo saarto inta aan ku sheegay aad bixiso reerku markuu inta isla ogaado oo isla ogaadaan ilmuhu uu yaqaan kabahu dalbanayo iyo shaatigu dalbanayo iyo funaanadu dalbanayo waa yaqaan wala fahmi sooma wasiirka iqtisaadiga iyo dhaqaalaha waa inuu guri ka shaqeeyo wasiirada badan baa loo baahan yahay hatta wax kale iska daaye sheekh hadda noo duubay kaamirada waa inuu jiro wasiirul i'laam
oo mar walba oo la fadhiisto waxa laga hadlayo mid duubaya oo diyaarinaya oo isku jarjaraya oo meel dhigaya waxaa yeelay bisha hal mar buu reer ku fadhiisanaya waxaa laga hadlayaa waxbarashada waxaa laga hadlayaa dhaqaalaha waxaa laga hadlayaa saaxiibka waxaa laga hadlayaa maqnaanshaha waxaa laga hadlayaa dariska waxaa laga hadlayaa waxaasoo dhan baa laga hadlayaa reer kasta waa inuu bil walba fadhi leh weliba jumcada ugu dambaysa insha allah waa aniga ijtihaadkayga wey jumcada ugu dambaysa bil walba inuu reerku fadhiisto oo arrimahaasoo dhan meel la dhigo qodobka koowaad waa maxay waa la iscafinayaa asbuuca wixii soo maray oo dhan waa la iska cafinayaa aduu madaxweynaha tahay soo maha laakiin ma gaftid waad gaftaa adaa lambarkow ah isoo cafiya xaaskaygiiyo isoo cafi waan ku jeclahay dumar oo dhan adigaan kaa doortay adiga la'aantaa ma noolaan karo cuntadaad ii karisaa weelashaad ii dhaqdaa carruurtan qurquruxda badan baad ii dhashay madaxaad ii saaran tahay haddaan bishii la soo dhaafay waxaad dhibsatay aad iga aragtay ilaahay dartii igu cafi waayo ilaahay baa yidhi inama almu'minuuna laakiin labada isqabto aayaddaas ma isticmaalaan wadaadku markuu khudbada akhrinayo asagoo islaantiisii soo dileen buu aayadda dadka ku akhriyaa halkaasuu ku akhriyaa inama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna akhawaykum islaantiisuna waa col xiira soo saas ma marka inama almu'minuuna ikhwa xaggee ka bilaabanaysaa adiga islaantaada walaalabatiin ha walaalatiin iscafiya laa yaxilu lirajulin an yahjura akhaahu fawqa halaath ma banaana 3 beri ka badan kala maqnaataan waa la iscafin carruurtuna waa la iscafin mawduuc hor leh ayaa halkaa laga bilaabaya intaan isla joogno haddaan sidoo kale jaanis kugu helno mawduuc ku saabsan qoyska wanaagsan iyo sida loo dhaqo iyo sida loo maamulo iyo sida in layskugu sabr la doonayo ayaan ka hadli doonaa insha allah biidni illaahi tabaaraka wa tacaala laakiin mawduucayga ku saabsan xuquuqu alabnaa'i cala alaabaa waa mawduuc aad muhiim u ah la fadhiiso carruurtaada la fadhiiso ilmahaaga wakhti si ilmahaaga waxaan ku soo gebagabaynaya marka nin baan la kulmay bilaxraa ninkii la kulmaa iiga sheekeeyey saan sanadka sax oga dhigo xaaskiisiba waxay ka weyday wiigii 2 saac bis nasiih uber buu saaran yahay uber mataqaanaa meeshin ma laga yaqaanaa waa nooc taxi ka mida taxi buu saaran yahay habeen iyo maalinba in yar buu seexdaa war 2 saac nasiih waan kuu baahannahay nag maxaa dhacay markii dambe islaantii waxay tirahdeen na kala dhaqaaji guurka marka aanu ka hadlayo 5 baan u qaybiyaa guurka mas-uuliyadda iyo guurka argoosiga iyo guurka duulduulka iyo guurka qasabka iyo guur kale 5 waay 5taa guur markay labada qof isku rafaadaan haweenku markaaba way guursadaan soomay arkin markaaba xaggee u taagnaa baad leeyahay ninkan xaggee buu sii taagnaa guurka argoosiga la dhahaa caro odaygii bay u cadhaysanta dafay tiri nairobidan agteennaa bay tagtay igaar bay dhab ku soo siisay uur bay dhab soo siisay waana islaamaha markay wallacaan isbitaalka gala odaygii waxay tiri wallac baanahay carruurtaadii u imow wuxuu yidhi sheekhow hadda ilma aan dhalinoo caloosha ku jira kow dheh islaantoo isbitaal ku jirta cunto u kariyoona qabin oo nin kala qaba 2 dheh iyo carruurtaydii ayaan sii geeyaa oon soo geeyaa aan soo qaado oon sii qaadaa haddana aan islaantii aan cunto u sii qaadaa intayna arrintaa ayna kugu imaanin islaantaada wakhti sii carruurtaadana wakhti sii carruurtaada la fadhiiso carruurtaada la sheekayso hadday iskuul u sii wado ha aamusnaanin la hadal waxaad dhahdaa intaa sii socoto soomaalidu waxay dhahdaa waxaan ku cunin maxaa la dhihi jiray ya maxaa la dhahaa nimaad dhashay kuma dhalin ku celceliya iga daba akhriya nimaad dhashay kuma dhalin nimaad dhashay kuma dhalin nimaad dhashay iskuul baad u wadaa aaba maxaad ka wadaa horta xifdi markaa xifdaan baa idiin sheegi alicraabu bacda almacna bal horta akhri markay dhammaato ayaa marka loo sheegaa marka ilmahaaga u sheekee markaa sii socoto markaa soo socoto ma isla cuna carruurtiinna
اسكت يا إلى العنت إسراء عنتان أو وقت سيسان أسأل الله تبارك وتعالى إلى وحن كبر إلى كلمات كانوا أنفعه وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.